السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الله عبد الكريم خليف وقنال كان كسو قدبية شيكوين كدعدوين كتاريخها iyo dhammaan wax walba aan isleeyahay markaas way bulshada wada wadaagi kartaa aad baad u mahadsantiin kusoo dhawaada meel kasta dunida ka joogta waxaan leeyahay de subscribe to like to share ta ila dhaafinina intaas aad baad ugu mahadsantihiin waxaan maanta meesha ku hayaa sheeko aad iyo aad u cajiib badan sheeko la yaab badan oo saameynaysa oo saameyn leh oo aynu ka qaadanayno waana iyo wax sheegid aynu ka fahmayno walaalayaal waxa jira waxa la yiri marka nin ayaa bari saddex wiil nin ayaa waxa uu dhalay laba wiil maalin ayaa marka wiil wuxuu ka helay meel baadi meel cidla ay cidna joogmo wuxuu ka helay wiil aysan meesha la soo dhigay dabcan wiil aan sharci ku dhalan buu ahaa oo ibnu zina markay wiilkii buu meesha ku arkay wiilkii soo qaatay xaaskiisu uu keenay labadiisi wiil ayaa naaska loola dhigay dabcan labada wiil laba wiil oo dhalay bay ahaayeen waxa la sheegay inay mataan ahaayeen markay naaska ayaa kan saddexaadna naaska ayaa loola dhigay wuxuu u baxshay marka labadii saddexdii wiil wuxuu u baxshay saddex Cabdullaahi markii uu geeridu u timid oo wiilashina waa weynaadeen ayuu wuxuu ku yiri wiilashaydiiyo wiil aanan dhalin baa idin ku jira dhaxalkaygan aan waxba ku lahayn waxaana idin kala saari doona ninka Maxamed la yiraahdo oo degmadaas meeshaas degan baa idin kala saari doona taga tilmaantii buu siiyay wuuna geeriyooday saddexdii wiil way soo raaceen mid walbana waxa uu rabaa inuu noqdo Cabdullaahi sharciga ku dhashay waxay u yimaadeen meeshii loogu tilmaamay odaygii meeshuu deganaa markaas waxay ugu yimaadeen meesha oday dhacay oo shayba oo gaboobay oo meesha looga guuray dabcan reerku waxay ahaayeen reer guuraa waxay yiraahdeen awow maxaa kugu dhacay wuxuu ugu jawaabay maandhow reeruhu hadba say ii sidi jireen hadda way iga caajiseen oo meeshan ayaa la iga guuray saddexdii wiil odaygii meesha ka soo qaadeen way soo kaxeeyeen intii ay jidka soo socdeen ayaa waxay arkeen oday meel dhaxmaraya oo shayba oo kii ay soo qaadeen aad moodid muuqaal ahaan inuu xoogaa ka dhalinyar yahay oo ulku tukubaya odaygaasna waa soo dhaafeen ugu dambeyn waxay u yimaadeen odaygii u socdeen odaygii goorta u yimaadeen waxay arkeen nin awood ahaan iyo xoog ahaan aad moodid 40 jir reerihii aqalkii dhigaya oo reerihii maaragtay aqalka u dhisaya oo shaqadii ku jira markuu arkay ayuu soo dhaweeyay geed ayuu u habeeyay aanu keenay isuga buu yiri inta hawsha dhamaysanayo waa u soo laabtay wuxuu yiri maxaad ahaydeen waxay ugu jawaabeen arrinkaas ayaan kuugu soconay adiga Soomaali ninka hebel yiraahdaa arrinkaas ayaan kuugu soconay inaad naga jaahil saarto laakiin waxaan rabnaa su'aal ku weydiino maxay tahay qisadan odaygan hadda aan soo qaadnay iyo odaygii aan jidka ku soo dhaafinay adigu maxaad isku tihiin waxa uu ugu jawaabay saddexdeenuba waan wada dhalanay odaygii aad jidka ku soo aragteen oo meesha looga soo guuray waa kii noogu yaraa buu yiri isaga noogu daayaraa waxa shaybka ka dhigay oo saa u baabi'iyayna wax kala maahan afar dumar ayuu qabay afartiisi dumar ka ahayd laba dumar ayaa u wanaagsanaayo afartiisi ninkaas afar dumar ayuu qabay afartuba waxay ahaayeen afar dumar oo xun markaas ay waxay la hareen afartiisi waaxood ugu dambeeyna waa ka meesha cidlada looga guuray kii dhaxda aad ku soo aragteen wuxuu qabay afar dumar laba wanaagsan iyo laba xun marka labadii xumayd ayaa labadiisi waaxood la haray oo waa kaas reerkii soo gaari waayay oo jidka soo marayay anuguna afar dumar aan guursaday afarta dumarka waxay ahaayeen afar dumar oo wanaagsan afarteedii waaxood bay afar kale igu dareen halkaasna waxaanu kala dhaxbaxaynaa in xaaska wanaagsani ay tahay wax aad u qiimo badan oo ninka ragaahi uu faciis uga hormari karo maamaha Soomaaliyeed ama xikmad Soomaaliyeed ayaa ahayd ninka xaas wanaagsan weliga ma gaartid saddexdii wiil saddex geed buu kala geeyay markana waxaynu u soo fiirinaynaa bal sheekada qaybtan ay ku dhisnayd oo labaad soo u kala saaro saddexdan nin saddex geed buu kala fariisiyay oo saddex gogolood buu kala siiyay kadibna wuxuu sameeyay saddexdiiba wuxuu u keenay hilib iyo caano markaasuu kii kawaad ku yimid wuxuu ku yiri
aabbaha soo xaas kama dhiman xaaska oo aabbaha ka dhintay guurso waan kugu darayaa ka waran toorey buu la soo baxay ablay bay oran jireen ablay weyn buu la soo dheer buu la soo baxay wuxuu yiri waa ku kala jaraya waxa sadaa dib dambe igu soo celisid ninkii uu ka tagay kii labaad buu yimid oo dhexda ku jiray sidoo kale ku yiri sidoo kale asna ugu jawaabay yiri ku kala jaraya hadaad mardaba hadalka igu soo celisid kii saddexaad buu yimid soo yiri ma diga daysidniyo ma diga day xoogaa inuu rabo ayuu ka arkay ma iga daysid weedadii ma iga daxbu ku yiri laakiin uu rabay odaygu waxa uu cadaatay marka kii ugu dambeeyay inuu yahay kan uusan odaygu dhalin labadii nin oo kale saddexdii buu isugu yeeray wuxuu yiri ninkan uusan odaygu dhalin labadiinaan uu dhalay markay waxa sameeyay labadiinaan dhaxlada xoolaha aaba ka tagay eedo iyo ariga yarkaayo soo harayna ninkan aan siinayna asaga eedana guursanaya ariga iyo xogaaga asaga u daayay asaga iyo eedo u daayay sidii ayayna sheekadaas ku dhamaatay dulucda sheekada aynu kala baxayno ama muhiimadda aynu u soo qaadanay waxay ahayd ninka xaas wanaagsan weliga ma gaartid ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhammaan singalka iyo doobabka inuu ilaahay siiyo xaasas wanaagsan oo afartooda waaxood afar kale ugu dara waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif muuqaalkan haddii markii ugu horeysay oo daawanaysid ay tahay subscribe ta inoo taabo like ta inoogu dar inoona share garee adoo mahadsan intii saaxiibada aad gaarsiin kartid gaarsii si ay manfaacadu iyo sheekada manfaacadeedu dadka u wada gaarto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.